ريانا مريها دقتي الحمد لله قف بالآدن إنا مريو دقتوا إسكالوينه هاي ما فهمت إنا قف بالآدن درتي سوا عشان الزايدة إسكالوينه قف كان شالي نولا أنا رحمتي هدا إسفهم نواكس هدا إسفهم وينه وين عاد صومه هو إسفهم وينه ولو كلا تجا مش وحيا أنت وانشرودي كنت رانيغو النودي منك موقع. And good morning, Sumaya. Say sweetie, haltaada waxaa waaye Good morning, honey. Sorry, I'm so busy. Like مشغولة حمل ميجاهين. الحمد لله اسكفي عنها and I miss you. aad baan salaamaya saaxiibada meel kasta joogtaan halkan waa Leenta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban oo aynu ku eegi doono maxay tahay khilaafka iminkan aad ka baraha bulshada loo hadlayo Rayaan Bajaaji waliba Cabaas oo hadda miyad sawdan Rayaan Bajaaji waliba Cabaas ayaa isdagaalay oo way kala idhoobeen maxaa halaankii bacdi jaceelkeenu ka aaminaa waayay hadda jaceelku iyo lamaannimada ee dhanka baraha bulshada maxaynu ka aaminaa sababahaas aynu falqeyn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa maxay tahay Rayaan Bajaaji waliba Cabaas sababaha isku dagaaleen suusu ama sumiyo wayaan miya jecel Cabaas arrimahaas aynu falqeyn doonaa dadka qaar waxay leeyihiin arrimahaas waa baranki wayaan laakiin aniga qudheeda waa la yaabay haddii arrintan noqoto mardaba ma aaminayo lamaanayaal kasta oo baraha bulshada sababtay tahay haddii labada maal ugu horeysa xabiibti iyo xayaati macaanto iyo macaan lisdhahayo haddana dabcan la kala irdhoobayo maxay tahay faa'iidada hadda waxaas oo kale waa wax qaldan weeyaan ma dadka miyaa la waalaya mise aniga qudheedu wallahi waan aaminsanahay lamaanayaasha laakiin arrintan haddii ay noqoto mid markaasi dabcan dhaba mar dambe lamaanayaasha ma aaminayo xataa qisooyinka iyo waliba waxyaabaha jaceelka xataa ma idin soo gudbinayo sababta waxaas oo kale wax laga xumaado weeyaan yaaqe marka saaxiibada waa iska arunaantii markaad aragto lamaanayaashii oo dabcan kala irdhoobay hadda hadii aan ku soo xasuusiyo imisa lamaanayaa jira oo haddana kala irdhoobay rasmireesi waad aragteen Soomaaliya farxan yare waxaad aragteen Soomaha Sumayi oo dabcan de waa ka ninkii odayga la caata wax xasuustan Soomaha sidoo kale Rashka Boy waliba inantii dabcan dabacsaneedo dabcan la dhihi jiray aadiyad inantii ku weyn xabsi Soomaha sidoo kale dhanka fankan hadii aanu eegno kolley waxay ahaayeen dad markaasi dabcan lamaanayaal oo dabcan hore aan idinku soo gudbiyay dhankii qiisadooda oo markaasi jaceelka ku saabsan dhanka fanka xataa way badan yihiin lamaanayaal markaasi dabcan iminkan kala dhoobay laakiin dadka inta badan anigu waxaan aamin laahay war jaceelka baraha bulshada soo jaceel ma jaceel cusub oo dadka inta badan aysan ka seenin oo dabcan de waa kala isku kala kicinayo kadibna markii dabcan la isku kala kiciyo kadib loo isku boodeemiya runtii arrintaas aan ma ogaan karayo marka saaxiibada muuqaalkan ku soo dhawaad waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ka Rashka aan iraahdo hadalheenta 14 noo subscribe gareysaan magacaygu waa Rashka weeyaan magacaygu waan iska jeclahay marka hadalheenta 14 noo subscribe gareeya saaxiibada haddii aanu sii eegno runtii muddooyinkii ugu dambeysay baraha bulshada waxa la aad iyo aad loo hadalhayay inay kala dhoobeerayaan Bajaaji iyo waliba dabcan Cabaas weeyaan runtii Rayaan Bajaaji waliba dabcan Cabaas waxay ka mid yihiin lamaanayaasha iminkan ku nool gudaha magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya xataa macnaha wax la karaya kaalinta koowaad hadaysan galin kaalinta labaad ay ku jiraan dhanka romantic-nimada dhanka nolosha dhanka isfahanka waxa soo idil miyay noqonayaan mid markaasi caratuura ama mid markaasi de waa kaayo been lagu laray miyay noqonayaan runtii dad badan ayaa aaminsan saaxiibada waxa leeyahay codad waxa jira dabcan Rayaan Bajaaji oo aad iyo aad u xanaaqsan sidoo kale ninkii Cabaas oo dhahaya Sumaya xabiibti macaanto Sumaya suuyaane macaanto xabiibti waa ku jecelahay shumeysku imaana waxa soo kale marka saaxiibada aniga oo kale waxa soo kale ma dhageysan karaya sababta tahay ma malaha ma dadka miyay baranki markaasi ku sameynayaan mise wax kale ayaa jira runtii marka Sumayo iyo waliba Cabaas maxaa ka dhaxin karaya Sumayo iyo waliba Cabaas maxaa ka dhaxin karaya ugu horeyntii waxyaabo ka dhaxin kariya waxay tahay midda kuwaad waa walaaltinimo weeyaan midda labaadna aniga maba aaminsani ba Rayaan iyo waliba in ninkii odayga ahaa Cabaas iyo waliba Sumayna wax ka dhaxeeyaan sababta tahay waa dad walaala wax ka dhaxin kariya laakiin jacayl markii loo eego sheekada waa aad iyo aad waa sheeko kale weeyaan marka saaxiibada aad baan idin salaamaya meel kasta joogtaan markan waxaan idin soo gudbinayaa codadka sirta ku saabsan Sumaya iyo waliba Cabaas oo haddaba isma macaansanaya macaanto xabiibti waxaas oo kale istahaya bal waa ka saaxiibada noo soo dhawaada mar kale منك موقع الليناي ضابح وابع دا جوجت وجود عم بعد سأنا نقول لنا نقول أدينا وكلا هرنا إن شاء الله أحد ياس وحاول سبتمبر مركا ما هذا كمر دلنا إن شاء الله مريسن وأصل قرننا ديلاير
والله baby أنا حتى I can't wait to see you تكارك ما فهمت أدون دنا يبتها لكن واكو أركان ما فهمت لكن سيد دون تبع كو قاطنا تعرف قصبان هذا حال هذا سوما المركز إماو أنا اللي كمالنا ويا سركنا ما فهمت لا أنت وانشرودي كنت رانيغو إنودي منك موكو good morning Sumaya see tahay sweetie xaaladaada waxaa waaye Good morning, honey. Sorry, I'm so busy. Like, مشغولة حمل ميجاهين. الحمد لله اسكفي عنها and I miss you. rayaana maryaha dhigatay alxamdulilah qof bilaadan inaa maryo u dhigto waa iskala weynahay ma fahantay inaa qof bilaadan dartiis u waashana zaa'ida iskala weynahay qofkan shalay nololana dhaxmartay hadaa isfahna waa kaas hadaa isfahmi weyno way dhacda Soomaha waa isfahmi weyne waa lagu kala tagayaa meesh wax yaalaaba jirinbo no isjid ninka naa ka raacdana soo u taga waa tagtay ayaa ku taga waa maxaa kula liqow maxaa ana rayaan ma umalaysin inay ninka dab oynayso ina inta meel soo fadhiisto aan dhaho ninka hoola aan badana maxaa qofkaasi wuu iga danaysta anna waa ka danaysan ويا صاحبada wala sheekadu maquna marka saaxibada meel kasta joogtaan baan idin salaamaya laakiin maxay tahay sabab horta loo kala tagayo sababaha lagu kala irdhoobay maxay tahay oo hadda waayahay lamaanayaal kale miya sugnaa oo kala irdhoobaya lamaanayaal kale miya sugnaa oo kala irdhoobaya sababtay tahay waan aragnay rasmireys wiila farxan yare noloshooda farxadooda kali la biaqay waynu aragnay sidoo kale kuwin xafsay wiila barashka boy iminkana way kala irdhoobeen sidoo kale waynu aragnay Soomaaliyahay waliba la caato oo dabcan ahaa lamaanayaasha markii loo eego runtii ay ku kala maqan xataa isdareensin jiray waxay ahaayeen dad isdareensiya jaceelka waxay ahaayeen dad isfahansan waxay ahaayeen dad boqol aad iyo aad markaas nolosha u fiican laakiin ugu dambeyntii maxay noqotay oo baraha bulshada waxa la dhahay Soomaaliya waliba way kala irdhoobeen laakiin hadda Abbas iyo qaadanaa iyo maxaa la yiraahdaa royal family ma Abbas waxaan qaadanaa lamaanayaashan lagu kala magacaabo Abbas waliba Rayaan waad ogtahay qof nolosha wax ka taqaantay weeyaan xataa oo qof soo arkay dhib iyo dheefooyaan marka waxaan aaminsanahay haweeney kasta waxay jeceshahay qofka markaas dabcan daacad u noqda oo hadda kulay Abbas waa qof daacad iyo maxaa la dhahaa qofka marka aragto wajigiisa oo qof aad iyo aad u hufan weeyaan runtii marka nolosha lamaanaha ee dhanka baraha bulshada waxa is leedahay still waa mid markaas aad iyo aad u xun weeyaan haddaad baraha bulshada caan ka tahay waa inaad ilaashataa jaceelkaada xataa ha isku dayin qof baraha bulshada caanka inaad shukaansato ama aad gursato sababtay tahay marwan waxaad arkaysaa adigoo dabcan waa ka aad isagaasheen waa haddii arrintaasi dhab tahay weeyaan markaan yahantiidu go'aana gaara saxaabay go'aankaygu wuxuu yahay Rayaan Bajaaj waliba Abbas haddii ay kala irdhoobaan oo ay kala tagaan aniga jaceyl dambe oo dhanka baraha bulshada ma aaminayo Soomaha marka haddii dabcan waa ka lamaanayaashaasi way isku fiican yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan bay ahaayeen marka waa ka saxaabada muuqaalkan tan iyo ku soo gabeynaya waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ka hadleynta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena like-tan uga caawisaan waana mahadsantahay